بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي نفضل ذي وبرشد علمي waxaan sii qaadan doonaa aan bilaabaynaa ama aan sii wadi doonaa casharadeenna hore noogu socday ee maadada programmingka C++ oo basicska maadooyinka programmingka maadada ah insha allahu tacaala waxaan rabaa marka inaan maanta ka hadlo cashiro qayb muhiima ayaan maanta rabaa inaan ka hadlo oo loo yaqaano waxaa loo yaqaano waxaan rabaa inaan ka hadlo data types ayaan maanta ka hadlaynaa insha allahu tacaala data typeska waxaan hore usoo dhiganay oo insha allahu tacaala intii ila soo socotay casharadeenii hore introductionka sida wax loo soo bandhigo oo aan soo bandhignay abc-ga iyo menugiisa iyo magacyaasha iyo waxaan soo isticmaalay ilaa iyo 3 program 2 program oo soo qornay cashirkii saddexaad programming ayuu ahaa programkii hore ku qornay kii afraad waxaan hadda ku soo qornay anagoo wax soo bandhigayno marka hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo data types iyo variables waxa la dhahayo labadaas hadda maanta rabaa inaan ka hadlo variables iyo waxaa la dhahaa data types maxaa la dhahaa data typeska waxaa waaye haddaan si guud kugu sheego waa nooca daatada ee la rabo in lagu kaydiyo computerka lagu kaydiyo si data loogu kaydiyo computerka ama si loogu kaydiyo data variableska haddaan data typeska marka waxaa waaye waxaan u isticmaalinaa variableska markaad variable rabto inaad qeexdo computerka barto waxaad u baahan tahay data type u baahan tahay so data typeka saasuu ku horeeya data typeska marka waxaa waaye data typeska maxay yihiin variableska buugagta qaar waxay qoraan identifier ayay yaqaanaan id-ga aad taqaanida kaleeto ama identifier ama variable waa la dhahaa oo wax doorsoomaya wax lagu shubanay marka data typekiisu waa muhiim data typeka waxaa loo kala qaybiyaa daatada horta meesha computerka lagu shubaayo waxay noqon kartaa ama waa xarfo ama waa nambaro waa labadaas ama waa xarfo ama waa nambaro daatada wixii ka soo haray imageska xitaa laftoodu waxay noqon doonaan hadhow digitizer ay noqon doonaan video digitizer ay noqon doonaan waxaas kale howl kale waa aniga hadda meeshan programmingkeenu kuma jiro sawir iyo video iyo audio midna kuma jiraan waxaan qoraynay aan wax ku kaydinay aan wax ku shubanayna waa laba shay ama waa xarfo ama waa nambaro xarfiya marka loo kala qaadaa waxaa la kala leeyahay ma hal xaraf ah mise waa xarfo badan haddii waxa aan isticmaalayno data typeska rabaa marka inaan ku baro haddii waxa aan isticmaalayno uu yahay xarfo badan aad rabtid inaad variableka aad wax ku shubanayso aad wax dhiganaysa hadduu yahay variablekaas variableka hadduu yahay macnaha daatadaas aad wax ku shubaysa aad rabtid inaad wax ku shubto hadduu yahay hadday string tahay ama xarfo badan hadday tahay waxaan isticmaali doonaa data type loo yaqaana string haddii stringu marka waa xarfo badan markaa rabtid magac oo kaleeto war oo kaleeto rabta inaad ka hayso string yaa ka dhiganaya data typeka string yaa ka dhiganaya hadduu yahay variableka macnaha qiimaha aad rabtid inaad wax ku shubtid ee variableka rabtid inaad u assign garaysa hadduu weer yahayna waxaan dhahaynaa xarafka waxaan isticmaalnaa jar data typeka waxaan isticmaalnaa jar waxaan u isticmaalaynaa inaan ku qeexno variableka hal xaraf rabo in lagu shubo hal xaraf rabo in lagu shubo wixii xarfo ah labadaas aan u haysanaa wax kaloo hadda aan ogahay aniga ma jiraan ilaa in wadooyinka lasoo marmaro oo wax lagu dhigleergaray maane taasoo kaleeto waxaa la dhahaa marka aliasis iyo waxyaala kaleeta la dhahaa aliaska waa ka duwan tahay tan marka waxaad haystaa marka waxa aad kaydinaysa uu yahay xarfo badan waxaad isticmaalaysaa string marka uu yahay waxa aad ku shubanaysa variableka waxaad isticmaalaysaa data typeka loo yaqaana jar labadaas inay cad yihiin umalaya wixii nambara ah kuu soo haray nambarada hadduu yahay nambar aan jajab lahayn nambarka aad rabto inaad kaydsato ama aad isticmaasho hadduu yahay waxaan jajab lahayn waxaan isticmaalaynaa integer ayaan isticmaalaynaa aad u fiirsan marka meesha waa numberis wixii xarfaha kuwaas ahayn integer aan isticmaalaa integerku waxaa laga soo gaabiya integer waa wixii tira ah ee aan lahayn tira jajab aan lahayn kow haddaan dhahna ka waran waaye haddaan tira jajaba oo iska kooban rabo oon badnayn haddaan rabo waxaan isticmaalaynaa float ayaan isticmaalinaa floatku waa tira jajab wadato laakiin aan badnayn waxaan rabaa tiro badan aan rabaa marka qaarkood oo kale inaan isticmaalo oo tiro badan aan rabaa inaan isticmaalo oo badan macnaha oo jajab badan wadato tiradu way badan tahay jabku way badan yahay maxaan isticmaalaynaa waxaan isticmaalnaa variable loo yaqaana double
intaasa mostly waxaad arki doontaa buugagta qaar waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid longi shorti waxaas inaad ku aragtaa laga yaabaa longi integer maxaan ku dhahay shorti integer waxaas inaad ku aragtaa laga yaabaa waxaas hadda waxba isku daalin as long as haddaad qof advanced tahay waa gooniya u tacaamulaynaa laakiin aniga waxaan ugu talagalay cashiradan qof beginner ah oo bilow ah marka waxaad un aqriki doonto waxaad un la socon doonto waxaa waaye waa cashiradaas inta badan arki doonto waa shantaas xaba ayaa mostly la isticmaalaa way noo imaan doonaan databaseska laba nooc waaye user defined iyo waxaa kala dhahaa iyo qaar oo built in ah kuwan hadda aan ka hadlayno waa wixii built in ah marka stringiga iyo jar waa wixii xarfe ah int iyo float iyo double waa wixii nambaraan u isticmaalaynaa okay variableskana kee marka variablesku waa doorsoomayaal variablesku waa waxyaale isbedbedelo loona isticmaalo in wax lagu shubto xisaabtaad kusoo dhigan jirtaa uma x iyo y iyo dadka carabi ku bartana siin iyo saad iyo waxaasaa la dhihi jiray lana waxaa loogu talagalay in wax lagu kaydiyo waa marka la rabo in wax la kaydiyo meeshii wax lagu kaydin lahaa waayo si wax loo kaydiyo marka waa in loo sheego nooca waxa la kaydinaya daatadeeda sheegaysaa kadib variablekaa qoraysaa siiqada ama habka loo declare gareeyo marka la rabo in variable declare gareeyo marka hore waxaa la qorayaa data typekaa qoray marka koowaad lambar laba waxaa qoraysaa variable nameka inta qoray underscore aan raacinaa si aan u muujiyay isku xiran yihiin halkana siiqada guud ee ay qaataan waa habkaas waaye marka waxaad qoraysaa data type space aa leedahay variable name aa qoray kadibna haddaad rabto semicolon ku darso haddaad rabto sii badso waa dhimar ah marka siiqadaasaan qoraynaa data type ayaan qoraynaa kadib waxaan raacinaynaa variable nameka C++ baa saas u qortaa saasay siiqadeeda tahay data typeskan haysano waa shantan ma xarfaa mise waa number ii sheeg waxaad qoraysid waxaad qoraya hadday xarfa yihiin waxaan qorayaa tusaalahaan oo kaleeto string iyo jar hadday lambara yihiin waxaan qorayaa integer iyo float iyo double variable maxaa tahay variableku waa wax doorsoomo oo waxaa loo yaqaanaa marka la define garanayo waxaa la dhahaa waa location in memory loona isticmaalay ama user for to store a data waxay rabto data noqoto number xarf waxay rabto noqoto markaa rabto inaad wax ku store gareysatid memoryga computerka position aad ka qabsanaysaa gaar ahaan variableskan waxaa positionkooda degaa ramkay degaan inta badan ramkay degaan marka variablesku waa noocaas waa waxyaale isbedbedelo oo isbedelka marka maxaa laga wadaa isbedelku ayaga isma bedelaan magacooda waxaa isbedelayo qiimaha ku jiro waxaan arday ayaa cashirkan u dhigayay marka waxaan xusuustaa 2013 meelahaas ahayd almost markaasaa waxaan ku iri dadan waxaan ku iri war qofka bini aadanka variable ma dhihi karaa si ardayda cusbayd marka iyoogti aan u fahansiiyey variable markaas yidhi macallin variable dadka lama dhihi karo markaasaan ku iri waa yahay anu waxaan aaminsan in la dhihi karo si aan waxaan rabaa kugu xidhan real lifeka iyo waxaad fahmaysid iyo cashirka waa inay is yeeshaan marka dadku variables ma yihiin ma variables ma hali lanu maxamed lewaa cali lewaa kaasaan ku ilaa waxaan aaminsan inuu qofku noqon karo variable waxa ku ka noqon karaa markaasaan waxaan ku idhi xilligaas nin baa waddanka haystay madaxweyne ka ahaa markaasaan ku idhi ninkaa xilligan hadda maanta madaxweynaha ah shalay muxuu ahaa macallin maanta muxuu yahay madaxweyne waayahay qiimihii uu shalay lahaa maanta ma leeyahay ma qiimihiisu waa isbedelay waxa isbedelaya marka adigu halkaasaan ka raba waxa waaye qofka valueisa isbedelaya maahane magaciisa isbedelaya sidaas si lamid ah variableka waxa isbedelaya qiimihiisa maahane waxaa loo kala qaybiyaa variable name iyo value name marka la dhahaa marka nameku isma bedelo laakiin waxa isbedelaya variableka waxaan ku yidhi adi maanta ardayaa tahay berri waa ka baxaysaa waxaa noqonaysaa valueha meelu ku egyahay berri waa baxaysaa jaamacadda waa dhammaynaysaa qiimo kala yeelanay berri waa sii dalaci doontaa qiimo kala yeelanay xilaa qabanay mas-uula noqonaya waxa isbedelaya marka waa valueha not variableka macnihiisa maaha marka laakiin variable maxaa tahay waa magac waa location ama xaraf magac la siiyey la rabo in wax lagu kaydsado waxaasna uu noo hayo waxa isbedbedelayo waa qiimihiisa marka waxa isbedbedelo waa qiimaha ma aha magac wax isbedelayo laano adiga marka arday tahay haddaad jaamacadda iska diiwaan gelisid magacaas aad isku diiwaan gelisid ID-gaaga weligiis awfal lama qaadan karo adiga unbaa iska leh waa mal bedeli kara laakiin maxaa isbedeli karo adiga qiimo waa isbedelaa magacayaasha adiga sanad koowaad labaad saddexaad fiiris isu beddelayso jaamacadda dhammaynaysaa qiimo kale kora u soconaya marka qiimaha isbedela mahane variableka
values isbedel marka aan tusaalaha aan bilowno marka see loo declare gareeyo waa yahay waxaan qorayaa hadda kasoo qaado kaleeto waxaan rabaa inaan ku tusiyo sidaan u declare gareyn lahaa markaas waxaan leeyahay tusaale ahaan waxaan leeyahay integer x aan leeyahay hadda waxaan declare gareynay variable loo yaqaano x data typekiisuna uu yahay integer waxaan leenahay markaan sharaxayna hadda code line-kan markaan sharaxayna waxaan leenahay waxaan qeexnay variable magaciisa waxaa la dhahaa x data typekiisuna waa integer kow waayahay waxaan kaloon leenahay kasoo qaado kaleeto waxaan leeyahay waxaan soo qaadanayaa floatka ayaan soo qaadanayaa floatka waxaan ku idhi waa tiro jajab wadato laakiin aan badnayn oo dhexdhexaad ah waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay kasoo qaado kaleeto y integer x waxaa waaye waa variable loo yaqaano x data typekiisuna uu yahay integer variable loo yaqaano y data typekiisuna uu yahay float variable loo yaqaano z data typekiisuna uu yahay double hadda halkaas waxaan ku haysaa marka saddex variable oo aan qiimo lahayn laakiin magacayaashii bas aan sameeyey marka waxaan leenahay halkaas variables oo waxaan haysanaa saddexa data typekooduna uu kala duwan yahay differencega u dhexeeya hadda waan sheegi doonaa insha allahu tacaala oo waxay kala duwan yihiin waxaan leeyahay kasoo qaado kaleeto jar variableka magaciisa waxaa la dhahaa xaraf halkan waxaan declare garaysaan leeyahay variable loo yaqaano xaraf data typekiisuna uu yahay jar waxaan declare garaysanayn doonaa variable loo yaqaano name ama magac ba aan ku wado af soomaaliga aan dhaho variable loo yaqaano magac data typekiisuna uu yahay string hadday horaan kuusoo siiyey qaacidada waxaan ku dhahay fiir hadda markaa isku aadiyo variablekii waa kan 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 waxaad haysaa marka data typekiina waa kana waa inta hore variableskiina waa kuwanaa magacyaashooda wixii variable aan ku aadiyey wixii data type aan ku aadiyey waxaad ogaataa marka ardayda qaar ayaa waxay weydiiyaan inta badan 10 sano maadadan dhigay almost marka su'aalaha ugu badan la weydiiyey waxaa jirta markii buugta la qorayna waxaa la raaciyaa waxa loo yaqaano maxaan ku dhahaayay questions macnaha questions ka dhalan karaa jira macnaha oo loo isweydiiyaa jirto ama ka imaan karo ama su'aal qof isweydiin karo qof wuxuu dhihi karaa oo macallin ma la dhihi karaa buu yidhi intaan dhaho x integer ma dhihi karnaa oo ma hormarin karnaa maya in some languages way aqbalayaan laakiin halkan hadda aan joogno maya lagama hormarin karo waagaas kulay hadda ma aqaano ayaan wax isbedelay laakiin ayaan markii programming la sameynay waxaa laga xisaabtamaa fiir waxaan ardaygaas waxaan ugu metelay real life markaan joogno tusaalaan raba inaan siiyo markaas waxaan ku idhi adiga markaad shaqo raadinayso maanta adoon jaamacadda dhammaynay shaqaa raadisay ekisaa tahay ma dhihi kartaa niyo aniga ekisaa lay dhahaa jaamacadaan dhigtaa shaqaan rabaa may maxaa lagu dhahaa shahaadadii soo hormari ninkii markaa su-aashii weydiinay nin reer lu ahaa niyo waxaan ku idhi iska daa adigu markaad maanta gabar doonanayso rabta inaad guursato ciddiinii iyo aabbaha iyo gadaal maa marinay mise ayaga ku hor kacaayo ku hor soconaayo may way hor soconaayo ayaga ay hormaraayo oo madaxdeydii hor kacaayo oo iga ergeynayo kan wuxuu ka ergeyn doonaa ekiso wuxuu u ergeyn doonaa compiler waxa la dhahayo marka shaygu waa wajahada hore waaye uu ka hormaraa compiler imaan doona line-kan ku dhufan doona markuu line-ka ku dhufto wuxuu leeyahay integer lay dhahaa wixii gadaasheeda ka imaada anaa watay aqoonso laakiin aniga adduun hadda waxaan joognaa cagsi dhacayo oo gadaal la marinayo mas'uuliyiinta iyo dadka oo madaxda way ka soo hormarayaan dadka kaleeto oo bilcagsi adduunku halkaas sax ma ahan sida saxda waxa waaye inuu horeeyo waxa horumarinta leh munaasibka qofku ku inuu hormaro qof gadaal ka imaado laakiin aniga aabbahay haddaan dhaho aabba gadaal iga soo mar waa sax ma aha marka waxa waaye wuxuu u ergeynayaa fiiri kan wuxuu hor soconayaa x waxay hor soconaysaa waxa x inuu maxaa lagu aqoonsanayaa waxaa lagu aqoonsanayaa flowda dhahaysa anaa madax ka ah anaa wato waa laga leexdo double anaa waxay leedahay anaa madax u ah waxaan wataa variable dhahayo z ha la ii aqoonsado yay u sheegaysaa compilerkuna waa waxaan kicinaya ka shaqeynaya
okay inta markaan variableski iyo databaseski uga baxo waxaan u gudbayaa inaan program ka dhigo sectionka labaad waxaan u gudbayaa inaan program ka dhigo oo aan laakiin waxaan rajaynayaa intaan hadda inaan isla fahanay data maxaa la dhahaa iyo float maxaa la dhahaa haddaan soo koobo data maxaa la dhahaa iyo variable maxaa la dhahaa haddaan soo koobo maanta cashirkeena waxaan ka hadlaynay qaybteena koobaad sectionka koobaad waxaan ka hadlaynay databaseska inuu video dheeraadaan diidana waqti dheer la socdo marka inaan ku kala jarjaraan rabaa waxaan ka hadlaynay database maxaa la dhahaa databaseska shantan aan kuu soo qaatay waa la sii badin karaa way badan yihiin waxyaalo kale way sii jiraan laakiin almost ardayga bilowga ah wuxuu qaadan karaa intanaa ku filan wax kale oo hadda oo ku dheeri ah oo ku imaan karo ama meel kale kaaga soo geli kara ma jiro u baahanaysaba databaseska waxaan ku yidhi waxaa daatada aad qaadanaysid waa labo maxay noqon kartaa waa xarfo ama tirooyin hadday xarfo tahay waxaad isticmaalaysaa jar ama string ko that's it ama string aad isticmaalaysaa oo xarfo badana ama jar oo hal xaraf ah haddii waxaad isticmaalaysa uu yahay nambarada hadday yihiinna oo lambare ay yihiinna waxaad qaadan kartaa hadduu lambarkaa jajab lahayn waa integer hadduu jajab leeyahay oo yar oo jajabka kooban yahay waa float haddii kaleeto waxaad isticmaali kartaa double variablesku maxay yihiin variablesku waa maskaxda computerka oo meel laga qabsaday oo magac la siiyey oo rabo in wax lagu kaydsado waa maskaxda computerka oo magac la siiyey oo rabo in wax lagu kaydsado xog kow maxay noqon kartaa marka see loo qeexaa waxaa la qeexayaa waxaa la qoraa datatype-ka waxaa la raacinayaa variable name-ka kadib habka isii tusaale iga sii tusaalaheeda waa kana waxaad haystaa integer waa datatype x waa variable float y double z jar xaraf string magac intaasna waxaa waaye waa variableski iyo datatypeski halkaasaan ayagana leenahay waxyaalaha marka waxaa jirto critical macnaha questions marka qaar imaan karaan ardayga waxaa laga yaabaa inuu dhaho macalin datatypeka hadda maxaa differencega hadda ayaan sheegi doonaa shirkad ayaa ku qaadatay markaasa waxay shirkadda hadday lacag rabto in la xisaabiyo lacag raba in la xisaabiyo marka tusaalahaan kaleeto arday ayaa waxaa la yidhi system samee systemkii uu datatypekii uu sameynayay markaasuu datatypeka wuxuu ka wada dhigay kasoo qaado kale shirkadda lacag raba in la xisaabiyo datatypekii wuxuu ku wada qabtay integer ku dhigay maxaa dhacaayo waxaa dhacaayo tusaalahaan kaleeto qof ayaa haddii shirkadda lacag xisaabinaya kasoo qaado kale shirkadaha telefoonka ku hadalo $1 shirkad aan telefoon ku shubtay haddii datatype-ku integer yahay qofku markuu telefoonkiisa lacagta ku shubtay $1 ku hadal ku shubtay 0.99 uu ku hadlay hal senti ka koy 0.99 u saartay hadduu integer yahay tura hadduu integer yahay maba lacag kuma jirto lahaa saas darteed waxaa laga yaabaa integer markaa ka dhigtid haddii qofku 0.5 ku jirto lacagtiisa ay tahay tura wuxuu soo qaadanaa waxa keli ah maxaan ku dhahaayay Nigerian lambarka taqaanay zeroda wixii hore ka ah bas uu qaadanaa wixii ka dambeeyo okay markaas waa inaan float isticmaalo ama double aan isticmaalo haddayba tirada jajab rabo in la geliyo macnuu sintiyaal iyo waxbaa la xisaabinayaa markaas oo kaleeto waxaan isticmaalinaa double ama float aan isticmaalinaa laakiin haddii aad rabtid inaad tirada aan jajab lahayn isticmaashid oo sharp ah oo 1 2 3 4 waxay isticmaalaysaa integer ay isticmaalaysaa marka hadhow meelahaas kaleeto markaad programka sameynaysid variable-ka waxyaalaha ruleska variable-ka marka la declare garanayo waxaa waajib ah inuu ka bilowdo xaraf waxaa waajib ah inuusan ku jirin space waxaa waajib ah inuusan ku jirin space waxaan ka wadaa waa inaan dhihin hadda ka soo qaado kale hadda meeshan oo kaleeto xaraf oo kale markaan lahaa inaan saas u qorin waa khalad waa inuu ka bilowdo xaraf macnaheeda kama bilaaban karo lambar waxaa laguma dari karo special characters wax la dhaha jiro special characters maxaa ka mid ah calaamadaha aan raaci karin waxaa ka mid ah calaamadaas special characters loo yaqaana waxaasoo dhan meesha ma geli karaan calaamadahaasoo dhan lagu dari karo intaas waa special characters question mark ku jirto waxaa ku jiro calaamadaha dhan ma geli karaan intaas variable laguma dari karo space laguma dari karo xaraf kama lambar kama bilaaban karo waxaa waajib underscore inuu ka bilowdo ama xaraf ka bilowdo underscore maxaa waaye macnaheeda saan kale waa dhihi karaa waaye rules variables ka lahaa marka maxaan ku iri variable ko inuu xaraf ka bilowdo waa inuu si space ku jirin waa inuu special character ku jirin waa inuu number gadaal uu ka imaan karaa dhimala xaraf 1 2 3 aan bixinayna laakiin waa inuu marka horeysa uu ka hormarin tiro marka waxyaalaha mamnuuca ka ah space kuma jiri karo tiro kuma jiri karto special characters kuma jiri karaan waa inuu xaraf ka bilowdo
waa ama underscore labadaas intaasna waa variableska ruleskooda marka la declare garaynayo waxaa common marka ah waxaa common ah macnaha intaas waa inta waajibka waaye waxaa common ah variableka markaad declare garaynaysid waxa fiican waxa loo isticmaalayo inaad geliso barnaamij EVC aan isku dayi doona inaan qorno insha Allah tacaala haddii tusaale oo kaleeto aan rabno ama email aan rabno inaan qorno markaan rabno inaan qorno variableka lacagta aan rabno inaan qoro marka inaan dhaho lacag waan u bixiyo qofkan haraagiisa waa inaan sheego laakiin dan x waa isticmaalo qofku ma garan karo qofka hadhow markaad software engineering insha Allah tacaala noqotid programming ku xoog badato software engineering kaas noqotid dadkan aad software ka sameynaysid dad kale isticmaali doono dadka isticmaalaya waa inay fahmi karaan wuxuu ku kooban yahay documentation la sameyn doona hadhow documentationka qofku waa inuu ku akhrisan karo waxa laga wado inuu qof kasto oo systemka isticmaalaya programmer ma aha developerna ma aha saas darteed marka waxaan idinka dalbanaa insha Allah tacaala markaad variable garanaysaan inaad raacisaan siiqada ugu fiican ee variableka magacu qaadan karaa x iyo y hadda waxaan u isticmaalay hadhow xisaabaan isku dardari doonaa waxbaan kala jajari doonaa waxaas aan isticmaali doonaa saas darteed marka insha Allah tacaala qaybtaas halkaas ayaan ku simayaa intaan koorka u gudbin insha Allah tacaala waa mahadsantihiin qaybta kaleeto ayaan aadi doonaa insha Allah tacaala